يا سويا يا سويا نايغا دين دمرك سويا وحقاق صاحبيال waxaad weli nagala socotaan beeg eke qanciya page iyo dhammaan Somali Voice Germany Radio waxaan inta badan diiradda saaraynaa nolosha wadankan Jarmalka iyo Soomaalida qaabka ay ku nool yihiin garabkayga midig waxa taagan Cali Xaaji Daahir oo kamid ah waxgaradka dhalinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Hamburg su'aalo dhowr ayaan rabaa inaan ka weydiiyo ku saabsan nolosha wadankan Cali ugu horeen ku soo dhawow barta YouTube-ka ee beeg eke iyo page-keena qanciye iyo sidoo kale beeg iyo waliba Somali Voice Radio waxaad inooga warantaa nolosha Soomaalida wadankan السلام عليكم بسم الله صاحب النوه قنعيه meel ma ka soo wada shaqeynay ninkan waa Hamburg waan isku baranay ma sha Allah اولا nolosha Soomaalida wadankan اولا بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeyaan Soomaalida joogta Hamburg wallahi waa dad aad u fiican weeyaan waa dad aad u furfuran weeyaan inkastoo iminka la oran karo dadkii bay iminka soo fahmeen dadkii bay soo fahmeen isdhaxgalkii Jarmalka iyo waxaasay iminka fahmeen qaar imika kale osbildin bay wadaan oo ma sha Allah iyo xaqii cadaankii iyo wixii ban heerso dhaxmay horumar bay xaqaa heerig ka gaareen dadna waa dad shaqeeyo weeyaan oo toodii iyo tiid wadankiiba u shaqeysanayaan qaarna waa qaar heer ku mashquulsan xaqii xaska oo iyaguna xaqaas ay iska joogaan oo guurka ku badiyaan bogo imika marka loo eego guud ahaan Jarmalka kale marka loo eego waa xaqa u badan ee guurku ka dhaco ma sha Allah intaas waan leeyahay ayaan ma sha Allah hala badiyo dadkuna heeday say heer u tafirmaaman ayaan rajeynaa insha Allah ta'ala Ali Soomaalida marka laga tago dalal fara badan dhalinyaradooda ayaa wadankan ku nool oo qaab magangeliye ahaan u jooga wadanka ay la qabsadeen hore ay u socdeen Soomaalidana waxay ka mid yihiin dadka dhaqankooda iyo diintooda ku adag wadankana si fiican u la qabsaday marka loo eego 5 sano ee ugu dambeysay maxaad filaysaa 5 sano ee soo aadan in Soomaalida wadankan maadaama guurkii soo batay bulshadii ay soo badatay familidii ay soo bateen in ay Soomaalidu hore u sii dhaqaaqaan اولا والله قرعيه waa su'aal fiican weeyaan imika kale shantii sano u dambeysay waxa la oran karaa waxyaalo badan bay soo faa'iideen bay la oran karaan oo wadankiiba imika la haysan waa sida imika carabkan ku dhuftay shanta dambe insha Allah ta'ala waxaan filaynaa iyagoo dameherada leh ma sha Allah iyagoo xafiis fadhiya inkastoo maanta la oran karin Jarmalka waxa fadhiya xafiis Soomaaliya la oran karin waxaan filayaa 2020ga wixii ka dambeeyay insha Allah in la yiraahdo xafiiska waxa fadhiya hebel baa fadhiya xafiiska kalena hebel kala fadhiya xafiiska kale hebel baa fadhiya marka imika imika la eego kale osbildin aad u badan bay wadaan xirfad bay wadaan xirfadooda ilaahayda ugu qabtee insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inay xafiiska noo fariistaan oo meherada noo furaan insha Allah hadii la helo xagga ganacsiga Soomaalida waxa lagu dhaliilaa Hamburg oo kale maanta inaan laga heleen meel ay ka adeegtaan oo milkiyadiisu ay leeyihiin Soomaalida maxaa u sababa maxaa ugu baaqi lahayd bulshaweynta Soomaaliyeed meel kasta ay ka kaliya yimaadeen ee ku dhaqan magaaladan wallahi su'aal fiican weeyaan rasiidow wallahi waxa ugu wacan muxuu ahaa inay meherada furtaan ama inay meherada fureen imika kale Afghanistaankii Suudaantii oo macallimka burburtay oo imika Suudaan oo kale imika dadka Soomaaliya oo kale meheradii leeyihiin Carabtii Eritreyaankii imika bas waxa ka liita xagga Soomaalida ka liita rasiidow intaana waxa leeyahay dhiirigelin weeyano inkastoo dadka ay hayaan lacag hayaan haddana inaad yarde Soomaalidu way iska yar bakhiil lacagta soo saaran leeyahay meesha ku fadhiidin bal ka soo saaran leeyahay insha Allah horo sabax ama santa Ali saaxiibada Soomaalida kale ayaan mikrofoonka la dhex qaadi doonaa ee ku dhaqan gudaha wadankan waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay hor u socdaan wadankan ay la qabsadaan maadaama dhalinta Soomaaliyeed dalkoodii ay ka soo tageen haddana ay ku dhaqan yihiin Hamburg iyo guud ahaan Jarmalka marka Soomaalida wadankan waxaan u rajeynayaa inay noqdaan kuwa kaalin weyn ka sameeya xagga nolosha bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore ku dhawaad page-ka iyo YouTube-ka
nolosha waddanka Jarmalka maxaa lagu qiyaasi karaa ma nolol adag ba mise waa nolol Soomaalida durba ay la qabsadeen والله نوشن دتك شرمك هذا أعتقد بما شرمك وضن كل شيء ضد هذا كسر دبعتها هاي ستة وده ماذا يروح شروع ديو قوانين تابك هذا الأساس تاي سومالو ما هذا ليسين أما ضد شلسن وضد ميل والبا كرتيك كابحة لكن الحمد لله والله لما ورا كرده وضد نورش كدعي وضد آديات دين لبنا وانا ضد كوجو أضيق دين تودي دقن كله وانا استعرضت في ضد قاون سومالي قف مش دون همرة لكن دين تجي حجاب كي وحبلي حجاب كي سمعتي شرفتي وضد كرامة دي كو أضيق سومالي لماذا علينا آديات سومالي وضع مانيين علينا هاي يدو أي تهاي دول قربوا لتشوقوا حتى رأي سومالي ديهين dad walaala isjecel meel kasta joogan soo hilooba waxa leeyahay ama santahay qaar ka tirsan Soomaalida ayaan mikrofoonka la sii dhaxgalaya sida nolosha wadankan ay tahay iyo sida ula qabsan saaxiibayaal Beg AK YouTube channel iyo page-kiisa iyo sidoo kale Somali Voice Radio qanciye page oo ah page-kayga laagina saartaan oo nagu soo birtaan ha ilaawina hin garbahayga bidixii midig waxa taagan qorane waxa uu kamid yahay dhalinyarada Soomaalida ee magaalada ku dhaqan waana mid kamid ah ciyaartoydii magaca ku lahaa magaalada Muqdisho hadda ku dhaqan magaalada Hamburg sidoo kale Larry waxa uu kamid yahay dhalinyarada magaca ku leh gudaha magaalada tan Larry ugu horan ku soo dhawow page-keena YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ga bal ka waran Soomaalida iyo nolosha wadankan oo aniga magacayga la yiraahdo Larry Boode aad waxaan leeyahay Soomaalida joogto wadanka Hamburg waxaan jeclaan lahaa inay gacmaha isqabsadaan ay qabyaalad iyo balaayo ay ka sheekeeyeen Soomaalinimada wax ka fiican ay si jirin aan u sheegay inay jirto hore u socda hala shaqeysta waa ka wada tiidi karoon ha shaqeysta waata Larry qorane soo dhawow bal ka waran nolosha Soomaalida wadankan والله marka hore waan dhawahay marka hore waxaan saliimayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeeynaa maaragtay koodi luuliye maaragtay in soo dhaaftay marka labaad waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Hamburg waa Soomaali jecel magarata wadankan ku wada cusubnay kulligeen waxaan u maleynayaa marka Soomaalida inay dad isjecel yihiin oo dad walaalo ay wada yihiin muddo hore wadankan ugu dambeysay haddana qas iyo qallaaso iyo dhibaato waxa waay wadan kaleete oo islaameed kuma geli karno marka Soomaalida ku nool maaragtay Hamburg waxaan leeyahay gacmaha isqabsada dad isjecel oo walaalo iska dhigta Soomaalinimadana mar waliba hal qadariyo wataa Soomaalidu ma sameeyeen isdhaxgal maadaama wadankan qoomiyada badan ay qaabileen isdhaxgalna ay sameeyeen dabcan ha waayo hadii aan maaragta aan sameeynin isdhaxgal waayo maanta inta ma tagnaa lahayn adreemaysa bulsho badan oo kala diina oo kala dhaqana maanta inay halkan ku nooshahay hadana ay ku wada nool yihiin muhiimadda ugu weyn waa taas in Soomaalida sameysay isdhaxgal taas ku cadeynayso sportigo kale wadankii ciyaariyaan weyn ayaa ku ahayd maanta Jarmalka joogta Hamburg sporting isku sii dayday in kooxaha wadankan aad u ciyaarto mana jira Soomaali la qabsatay heerarka koowaad heerarka labaad iyo heerarka saddexaad wadankan inay ciyaaraan والله horta sportigi ma wadanka marka joognay muhiimad gooni aan saari jirnay laakiin wadanka marka aad timaado qof wali wuxuu raadinayaa hungurigiisa iyo bariiskiisa la dagaalamayo marka wadanka joogtay waxa laga yaabaa hooy iyo aab inay ka caawiyaan maaragta wax allaalo waxa qabsan lahayd laakiin marka inta timaado kaligaaga tahay guriga aad seexanayso waa lacag maaragtay magaalada aad soo galayso waa lacag muhiimadda ugu weyn marka waxaad saaraysaa si aad noloshaada ku barbaarin lahayd ama maaragta wax ugu qaban lahayd marka sportiga halkiisa ku heeray inaan banaan ku ciyaarno mooyee Larry waxaan rabaa su'aal qaasina ku weydiiyay maadaama ay ga dheeraatay wadankan Soomaalidiis waxa la sheegay inta badan guurku inuu ku badan yahay maxaa u sababa leedahay in Soomaalidu guurkoodu uu xooli yani u socdo waxa u sababa isdhaxgalka u sababa taasi waa guul ay gaareen Soomaalida joogta Hamburg laakiin rag waxay ka cawaayaan ama ay ka cawaadayaan baa la yiri dhinaca in dumarka Soomaaliyeed wadankan ay soo ku badneen oo ay rag ku badan yihiin taasi warantooda aasho ku yarna soo yaaca naagaadin dumarka soo yaaca